الله u naxariistay askarigan oo ka tirsanaa booliiska Galmudug ayaa ku baxay gacanta xaas uu qabay kadib markii fal kale uu ka dhacay qeyb ka tirsan gobolka Galgaduud Sakariya Xasan oo ka tirsanaa booliiska Galmudug ayaa la sheegay inuu sababsaday marxuumkan gacanta gabar u dhaxaysay falkan oo ka dhacay degmada Xiraale ee gobolka Galgaduud marxuumka oo mudooyinkii u dambeeyay la sheegay in howlo shaqo ugu maqnaa magaalooyinka Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb ayaa ku laabtay degmada Xiraale ee gobolka Galgaduud markii uu shaqadiisa uu soo dhameystay waxaa la sheegay Sakariya Xasan oo booliiska Galmudug ka tirsanaa in xalay uu ku laabtay gurigiisa oo ay ku sugnayd marwada gacanteeda uu ku baxayo inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn sababta keentay dilkiisa haddana warar soo baxaya ayaa sheegaya in dilkan uusan u dhicin si kas ah wararka qaar waxay sheegayaan in dilka askarigan u yimid kadib markii ay ku fakatay xabad bastoolad isaga oo bariyay xaaskiisa sida bastoolada loo rido iyo sida loo isticmaalay intaba inkastoo warkan uusan ahayn midka sida rasmiga ah haddana waa kan ugu badan ee isa soo tiraya oo ku saabsan dilka askarigan waxaa gacanta lagu dhigay gabadha dilka geysatay oo u dhaxaysay Sakariya Xasan iyada oo hay'adaha amniga ay sheegeen in ay wax ka weydiin doonaan sida falkan uu u dhacay